grading waxaan maanta halkaan isugu nimid inaan daahfurno munaasabadda daahfurka buufinta ayaxa laga buufinayo xagga hawada oo sida ogtihiin wadankeena ilaa bishii Juulaay sanadkii tagay waxaan la daaladacaynay ama dhibaatada wadankeena ku hayay musiibada ayaxa oo runtii aad iyo aad u degay oo dhibaato weyn u geysay deegaano badan oo ka mid ah Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu daran oo ayaxu aafeeyay waana wadanka uu ka soo galo bariga Afrika markuu ka yimaado bariga Carbeed wadanka uu ka soo galo Soomaaliya weeye ilaa bishii 7 sanadkii tagay ayuu ayaxu marayay deegaano badan oo Soomaaliya wasaaraddu waxay waday dadaalo badan oo ka soo bilowday in gacanta lagu buufiyo markii dambe in lagu buufiyo baabuur lagu rakibay motooradii buufinayay maantana waxaan u joognaa in diyaaradihii cirka ka buufinayay la daahfurayo 3 diyaaradood hadda laba halkaan taagan mid kalena wuxuu imaanayaa dhowr bari kadib oo ka buufin doona cirka diyaaradahaasi waxay buufinta ka bilaabi doonaan gobolada ugu daran oo ayaxu aadka u degay Galmudug maamul goboleedka Galmudug iyo Puntland waxa kale oo iyadana laga buufin doonaa gobolada Somaliland ayaxaas oo runtii kii hore oo degay xantii uu ka tagay hadda ay dhalayso roobabkan socda sababtooda awgeed isbedelada cimilada ku dhacay darteed runtii ayaxu wuxuu noqday musiibo weyn oo ku soo biirtay bariga Afrika iyadoo la og yahay culayska adduunka maanta uu ku hayay Soomaaliya si gaar ah caabuqa safmarka coronavirus ayaa haddana dawladdu waxay u taagan tahay in musiibooyin kale oo jira lala tacaalo oo ayaxu ka koow yahay waxaan rajaynaynaa sida hadda uu noo sheegay ninka hogaaminaya tiimka diyaaradaha buufinaya inay dhul badan ka buufin doonaan haddii ilaahay ma ayaxa jooga oo ay laguna buufin doono chemicals oo organic ama dabiici oo wax dhibaato u geysaneen xoolaha iyo biyaha iyo dadka intaba oo hore loo geeyay deegaamadaas hore u yaalay oo loogu talagalay maadaama xooluhu aad ugu farabadan yihiin wadankeena inaan dhibaato ka soo gaarin waxaan rajaynaynaa in horumarkan hadda maanta la sameeyay oo in diyaaradaha markii ugu horeysay Soomaaliya 30 sano muddo ka badan diyaarado in lagu buufiyo ayax waa runtii dadaal waxay ku timid wadajir oo dawladdu ay ka shaqeysay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa madaxda sare ee dawladda madaxweynaha Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo runtii ilaa markii uu bilowday musiibada ayaxu dadaal gaar ah iyo ahmiyad gaar ah siinayay sidii looga hortagi lahaa waxaan kaloo u mahadcelinaa hay'adda FAO oo khibrad badan oo xagga technicalka ka geysatay la dagaalanka ayaxa waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaa hay'adda USAID oo iyadu fanka diyaaradahan bixisay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa operationka inuu bilaabo doono berrito oo ay ka bilaabi doonaan deegaamada aan soo sheegay iyo meelihii kale oo ayaxu ka soo dhasho laakiin hadda inta surveyadu ay cadeynayaan goobaha ugu badan yahay halkaas weeye gobolada kalena haddii laga soo sheego diyaaradahan waa joogi doonaan muddo dhowr bilood ah aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysan doono operationkan oo runtii diyaaradahan imaanshahooda xagga saadaasha iyo saxminta meelaha ay ka howlgalayaan iyo hagidda tiimka diyaaradaha waday aad iyo aad gacan weyn uga geysatay wasiirka iyo maareeyaha aviationka intaba u mahadcelinaa iyaguna oo runtii ilaa markii hawshan aan galnay gacan fiican siinayay